maantana waxaa safar dheer noo soo galay jamciyad ka dhisan magaalada Hargeysa oo ah jamciyadda tawxiidka al-islaamiya. waxaa kale oo farxad noo ah in aan noqonay iskuulkii ugu horreeyay ee uu sheekhu booqdo. waxaa kale oo farxad noo ah in aan noqonay guddigii dacwo ee uu sheekhu si gaar marti qaaday. sheekhu shalay wuxuu ugu soo gabagabeeyay masarowda barnaamij yar oo soconayay 3 jimce oo guddiyada dacwada iskoolada ka dhisan u socday 3 jimce. bulshada sheekhu aan fursad u helo inuu soo gabagabeeyo warkaan noogu استاذ اسبريت ورا المقالة يمين ميلا بدنا يوكا قيب قلي. وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله. بشي عبري 2016 waxaa gudoomiyaha mu'asasatu tawciya al-islaamiya hogaamiyaha ruuxiga ah ee dacwadda Sheekh Saad Maxamuud Sheekh Muuse waxa uu safar dacwadeed ugu kicitimay xagga gobolada bari iyo magaalada Boosaaso halkaasi oo ay mu'asasatu tawciya al-islaamiya kaga qayb gashay nadwa cilmiyeedkii 2016 ka socday magaalada Boosaaso masjidka Al-Rawda iyo gudiyadii dacwadeed ee dugsiyada magaalada Boosaaso iyo dhalinyaradii lagu tarbiyadeynayay dacwadaba. maantana waxaa safar dheer noo soo galay jamciyad ka dhisan magaalada Hargeysa oo ah jamciyadda tawxiidka al-islaamiya. waxaa kale oo farxad noo ah in aan noqonay iskuulkii ugu horreeyay ee uu sheekhu booqdo. waxaa kale oo farxad noo ah in aan noqonay guddigii dacwo ee uu sheekhu si gaar marti qaaday. sheekhu shalay wuxuu ugu soo gabagabeeyay masarowda barnaamij yar oo soconayay 3 jimce oo guddiyada dacwada iskoolada ka dhisan u socday 3 jimce. bulshada sheekhu aan fursad u helo inuu soo gabagabeeyo warkaan noogu استاذ اسبريت ورا المقالة يمين ميلا بدنا يوكا قيب قلي. wuxuu ka qayb galay xalfadii quraanka lagu soo xirayay Ramadaan sidoo kale wuxuu ka qayb galay dacwad lagu qabanayay ardayda dacwad ka shaqeysa oo iskoolada dhigata masrood halkaas aan lagu soo aragnay sidoo kale alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الله إنه سخري أما إنه سهلي إن أينو سجون مع النصاكي أن دكسيجان قيمها بدن دكسيجا سقيبتي دكسيجا سرع بندر قاسم سيدا ومعملوه الشاقي مقعي وسعد محمود شيخ موسى قدوميات جمعية التوعية الإسلامية وردي يقول الرئيسي النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه لو سودت شيء وحي أحد اقرأ أي أحد وأتقرن إنسان قرالك أخرسك فإذا دوليه وأنا لأنه قلت لك علي مركز دين تنبأ إني أنقطه بيس وح أخرسك يوح قرالك شيخ توحيد القيمة مدنيت ومنسيي الله نقدر كوي الراعة ولينا الله نقدره أستغنى بسانك حسناتك القيامة الله وقدره سأوتها وحويان وحو سيانا وح بدن بدن عرقتها ويسوعوا ترادا وحو كوش يغنى وحير بدن عرقتها لولا كلمة القيمة بدن وكلمة قالعة وحنو لنا الشيخ دينك هذا يضدك هذا يو أديك الله كبركيو كلمة قالعة وعد نصيصي إن شاء الله بإذن الله تعالى إننا وحنا نرغب hadda inaynu weerayno waxaana uga mahad celinaynaa booqashada uu soo booqday sheekhu iyo sida uu noo soo qadariyay maadaama uu magaalada yimi kuna soo dhaweeya dhageysi wacan iyo waji furan iyo maxaan ku raahdaa qalbi wax xambaari kara aad baa u mahadsantihiin ku soo dhawaashaada sheekh ilaahay idinka dhigo arday khayr iyo baraka badan uu ilaahay siiyo maamulkiinana kuwii uu ilaahay khayr siiyo oo uu ka aqbalo wanaaga iyo khayrka ay idin wadaan Allah ka dhigo
انت كذب أول ما خلق الله القلم waxa ugu horeeya ee uu Ilaahay abuuray waxa uu ahaa qalinka Ilaahay wax uu abuuro waxa ugu horeeyay waxa uu ahaa qalinka kadibna wuxuu Ilaahay yiri qor ilaa yawm saacana uu qoraya ilaa inta qoraalkii buu wadaa iyadoo ay waliba jirto qof walba hadana in laba malag loo saaray qorta oo ay qorayaan khayrkiisa iyo sharkiisa hadii aad arday yar oo mustaqbal la tihiin oo aad haysataan chance aad iyo aad u fiican nabiguna yiri salawaatullaahi wa salaamu alayhi xadiiskii dheeraa min ahli al-janna shaabun nasha'a fi ibadatillah aw kama qaala rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam nin yar oo dhalinyaro ah ama gabadh dhalinyaro ah oo ku barbaaray diinta runtii waxa weeye fadliga uu leeyahay waynu wada garanayna